hay-adda haro oo kaashanaysa mu'asasada karam oo ka fulisay mashruuc biyadhaan booyada ah gobolka Bohol gaar ahaan degmada Tanwurwid waxa ay noo soo wakiilatay deeqdan biyaha oo ka kooban 6 booyadood inuu gaarsiiyo gudoomiyaha dacwada magaalada Woodward Sheikh Cabdullaahi Cawad waxa uu ku wareejiyay gudida abaaraha iyo beedhaanka magaalada Tanwurwid oo hormuud ka yahay Sheikh Beledka degmada Woodward Sheikh Cabdiraxmaan Ciise ugu dambeyntii waxa loo qaybiyay biyaha dadkii xoolo dhaqatada ahaa ee saameysay biyo la'aantu iyo bulshada ku nool magaalada Tanwurwid waxayna warbaahinta Woodward Media kula hadlay dadkii goobta joogay waxayna dadka muxsiniinta ah ka codsadeen inay ka qayb qaataan tabarucaadka biyadaanka ah ee ka socda magaalada Tanwurwid waxaana hadaladooda kamid ahaa sida tan subhanahu wa ta'ala mahad iskale Allah subhanahu wa ta'ala nasiin nacamkiisa faraha badan ee aan koobi karin أول كلمة الإسلام والإيمان إله معكم هذا سبحانه وتعالى أنت كبعدي ما أنت وغاية هاي لبعتك بشي سدحال لبعضكم إيا لبعضني كلوا وهل كان أدرك أساس بورك كعاد هذا هرو مشروع أي بزنس أو بيدانة أو أي فلوس مؤسسة الكرم فرع وودورد إن شاء الله تعالى وحرمنا ما تكون إنه هدير هاي غدير وجودي ده الله بدنا في دقيقة كهيسة hawlahan biyo qaybta iyo runtii hawlo badan gacanta ku haya si ay dadka haraadan dadii dunyada leh miyi magaalada leh wixii insha Allah taay ka gaari karaan ay maanta ugu qaybiyaan biyaha insha Allah taala hadii ay qadaro marka biyaha saan rabnaa in maanta aan ku wareejino gudida degmada Woodward qaybta biyo dhaamiska insha Allah taala marka gudi كسر دوادا لنا وريه بيها إن شاء الله تعالى إلهنا سبحانه وتعالى واحد كبر يعني يضيف وياه قابل هذا يو بحنت هذا يو أباب الكبيرة سبحانه وتعالى يضيف وياه مركان إن شاء الله تعالى والأرسل وأنت سبويدود مركان إن شاء الله كسر دوادا ودي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين به نستعين على أمر الدنيا والدين صلى الله عليه وسلم الحمد لله إلهي بأمر الله waxaan joognaa magaalada Woodward waxaan saakaalka ugu nimid inaan kaga gudoono hay-adda haro biyadhaamis ay bixisay oo dadka raadan waqtiga jilaalka u hayo ay u deeqday taasoo ay u soo wakiilatay mu'asasada karam dacwada tanmiya farceeda magaalada Woodward marka culimadii iyo dacwadii waxaan ka gudoonay biyaha iyaga ah oo biyadhaamiska ah oo dadkii maartay aan insha Allah saaka loo qaybin doono waa laba qayb oo dadku qaybna balligii oo aan hadda joognaa xoolihii imaanayaan oo xoolihii lagu waraabin doona insha Allah taala qaybna magaalada ayaa loogu shushbayaa foostooyinka ayaa loogu qaybinayaa marka waxa weeye aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa ilaahay baa mahad leh biyaha ayna soo gaarsiin iyo deeqdaas hay-adda haro iyo mu'asasada mashruuca fulinaysa oo mu'asasada karam dacwada tanmiya marka insha Allah ilaahay subhanahu wa ta'ala cid kasta oo biyaha la soo baxday waxaan ugu ducaynaynaa ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu xawdka jannada ka waraabiyo ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu miisaanka xasanaadka u saaro ilaahay uu barakeeyo ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in cid kasta oo arintan maqlaysa oo hadii alla ka dhigayo ay klibkani soo gaaro in ay ku daydaan dadka hadda waqti adag baa haya ilaahay naxariistiisa sugaynaa laakiin dadku waa raadan yahay 6 booyadood baan saakaalka ku qaybinaynaa marka waxa weeye 6 booyadood marka loo eegana waa wax yar oo maanta uun yani qayb kamid ah magaalada ay waraabinaysa laakiin aan wada gaaraynin dadku waa ooman yahay kalbaanu hadda waraabinaynaa maanta marka dadkii waxay u baahan yihiin biyo صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد ساكو أي تهاي بشي سدحال لباتك لبكم يكوب يلباتن waxaa halkan ugu wareejinaya biyo lagu talagalay in dadka la siiyo oo degmada lagu qaybiyo biyadaankaas oo ay filinayso hay'adda haro oo kaashanaysa xafiiska dacwada karam ee degmada Woodward sida gudoomiyaha dacwada uu sheegay Sheikh Cabdullaahi runtii hawsha saaka lagu wareejinayo gudida degmada waa 6 booyadood oo biyo ah runtii waxaan u mahad celinaynaa dadkii ka horeeyay haro oo biyadaanka soo bixiyay degmada ku soo bixiyay guddiga soo wareejiyay iyo hay'adda haro oo iyaduna hadda hawshan iyaduna qayb ka qaadatay insha Allah taala waa mahadsan yihiin hay'adana waa mahad celinaynaa ilaah waa mahad iska leh
waxaa kale oo aan iyagana ku baraarujinaynaa maadaama muuqaalka iyo warbaahintaas aa kala qabtay in deegaanka ay ka jirto baahi fara badan oo xagga biyaha ah marka deegaanku biyo la'aan baa ka jirta marka waxaanu codsanaynaa cid kastoo markaa muxsiniina hadday tahay waxa weeye hay-adaha iyo ururada lamidka ah inay deegaanka biyo dhaanka laga wado ee la qaybinayo ee xoolihii iyo dadkii iyo bahaayinka oo loo qaybinayo inay qaybtooda ka soo qaataan insha allahu tacaala oo ay guddida waxa weeye ku soo hagaajiyaan annaguna ka xafiis ahaanka dacwo ahaan saaka insha allahu tacaala guddida waa ku wareejinay 6 booyadood iyagaa degmada u xoogaarsan insha allahu tacaala fidin doona marka aad iyo aad bay waan uga mahadcelinaa biyaha waxaa loogu baahan yahay si qeyr caadi baa loogu baahan yahay markaan deegaanka ka hadlayno waxaa ka jira deegaanka haraad badan baa ka jira haraad daran baa ka jira intana waxbay noo taraysaa wax weyn bay noo taraysaa laakiin si dhinac kale marka laga eego waad aragtaa inay soo kooban yihiin oo 6 beelood baanu hadda haynaa wixii nooga dambeeya waa nooga dambeeyaan waxaanu rajaynaynaa cid kasta oo aragta arrintaa iyada ah dhalooyinka ka daawata inay ka qayb qaadato hadday tahay ururada deeqda bixiya hadday tahay dadka la baxaya iyagu wax la baxaya ilaahay horta wuxuu la baxaya waxaan rabaa inay ka qayb qaataan maadaama ay ka jirto haraaddan inuu ku jiro deegaankanna waxa weeye waa deegaan aad u ballaadhan fiig ma laha cid kaloo meel kalena kama helo wax magaranaysaa maamulada ka jira dalal ka jira midna waxba kama helo mid walba waxa weeye allaale wax ka soo gaara oo biyo dhaana oo eegidiisa ma jirto waxaan codsanaynaa cid kasta oo hawshaa ka qayb qaadan karta hadda wixii ka dambeeya inay ka qayb qaataan oo dadka abaartu tabaalaysay haraadka daran uu hayo wixii ay la qaban karaan ay la qabtaan assalaamu calaykum waraxmatullahi عبد الرحمن محمد سليمان عبد الرحمن بلشاوي وربعين تور الميديا